maalmihii la soo dhaafay waxaa ku sugnaa deegaanada Qorley iyo Magacle isimo iyo nabadoono ku hawlan sidii loo xalin lahaa dagaal beeleed u dhaxeeya beelo walaalaha oo muddooyinkii u dambeysay dirida ku dhexmarisay deegaanada Qorley iyo Magacle waxaana si rasmi ah loo soo gabagabeeyay wajigii labaad ee nabadeynta iyadoo loo ballamay in muddo kadib la isugu yimaado gogol nabadeed oo lagu wada hadalsiinayo beelaha walaalaha ee colaadda u dhaxayso iyadoo ay gogoshan dhigeen isimada iyo waxgaradka ka socday deegaanka Jubbaland waxaana gogoshan nabadeed ay ka dhici doontaa deegaanka xorre oo u dhaxeeya deegaanada Qorley iyo Magacle kulankan oo lagu shaacinayay xilli gogosha iyo sidoo kale soo gabagabeynta wajiga labaad ee nabadeynta beelaha walaalaha ayaa ka dhacay deegaanka Qorley waxaana ka soo qayb galay isimo badan oo ka kala socday gobolada Puntland Jubbaland iyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana ay ku dheeraadeen dadaalka ay ugu jiraan nabadeynta beelaha walaalaha ah maanta oo aan joogno goobta la yiraahdo magaceeda Qorley oo ay degantahay saldhig u tahay beelihii dagaalamay midood bahar samay oo annaga nagu faraca sidaa daraadeed waxaan u jeedaynaa adduunka iyo kuwa dariska iyo kuwa jecel inay arrinta lagu guuleysto waa lagu guuleystaa arrintii waxa la isla raacay oo guddi garsoor oo ka kooban 33 xubnood waxa kale oo la isla qaatay oo la isla raacay guddi marjac oo 15 xubnood ah waxa kale oo la isla qaatay guddi culimo awdiin ah oo wixii shariica islaamiga loo baahdo iyo wixii wacdi iyo waana ah shirka u qaabilsanaan doona insha Allah waxa kale oo la isla qaatay 21 xubnood oo beesha Cumar Maxamuud ergada u matalaysa oo shirka uga qayb galaysa ah iyo 21 xubnood oo beesha Bahar Same ah oo ergada shirka uga qayb galaysa oo ku matalaysa shirka waxay noqon doontaa waqtiga qabanqaabada oo hawshu soconayso 15 maalmood bay noqon doontaa oo ka bilaaban doonta berri labada beelood oo sahlay in dadku isu yimaadaan iyo deegaannugeelka ay dadka u muujiyeen ergooyinka meelaha isaga yimid waxba uma hirgaleen haddaan labada beelood oo labada isin hogaaminayaan haddayna noo dhimrin oo noo dhaganuglaan oo nala shaqayn waxba nooma hagaageen waxaan aad ugu faraxsanahay go'aanada tan la qaatay ee qodobadii hore looga soo gudbay ku xiga oo hadda loo gudbayo runtii waxa weeye waa nuxurkii halka loo yimi waxaan anigu oo kaliya u mahadnaqayaa ergada ka timi Jubbaland fayskii labaadna wuxuu ahaa kan hadda la marayo oo lagu heshiiyay gogol iyo wada hadal wixii la kala tirsanayay in laga wada hadlo iyana waa lagu guuleysto 15 casho kadib baa la isugu imanayaa hadda ma ay dhamaan hadii iyo moodi la leeyahay halkii dhamaatayo hadda la isugu imanayo ma dhamaan fayskii hore iyo qodhiga waa la soo ogolaaday weeye nabadii iyo isu sheegadkii iyo ragii dhintay iyo xuduudii kala xaday lahaa iyo wixii wax lagu ogaan lahaa iyo xaaladii cusbaa way dambeeyaan tan hadda waxa weeye gogoldhigii baa yaxbad joojintii gogoldhigii baa la ogolaaday waxaan anigu u kacay ama salaadiinta iga dambaysa u kacayaan waa in la caddeeyo in ay nabadii ay xidhantay taasuunba ay kicisay xaajadii halkan ka dhacday cid ku faraxsanayd ma jirin haddii ay qoyskii halkan ku dhacdayna taladeedii sidii odayaashu maalintii horeba u sheegeen sidii aan uga faramaroojinay baanu maantana aanu gacanta ugu haynaa nabadana aanu u qaadannay hadalkuna wuxuu ku dhan yahay ilaa 2 bisha ayaa lagu diyaar garoobayaa gogashaasna waxay taallaa Magacle xor iyo inta u dhaxaysa Qorley anoo ka mid ah odayaasha beesha Bahar Same waxaanu u qoor dhiibanay oo aqbalnay oo aanu ayidsanahay gogashii iyo muddadii iyo qaabkii hogaaminta madasha shirka iyo muddadiisa iyo gogashiisa hormuud ka yihiin waftiga ka timi Jubbaland
dadaalkan aad tolkiin ugu soo kicitinteen inaad ku kala hagoogataan hadalka waxaan u malaynayaa waa la yidhi sidaa jiif caaqilkuba sheegay waxaannu hore u aqbalnay xabajoojin iyo inaannu colkayaga celinno dabarno xabajoojin aannu ka aqbalnay ergooyinkii taasaannu ku fadhinay dhexdhexaadku noogu kala dab qaadayeen maanta arrintan la keenay ee ahayd gogoshii meesha la dhigayo cidda dhigaysa cidda dhexdhexaad ka noqonaysa iyo muddada la dhigi doonaba arrintaana waa aqbal deegaanada qoriley iyo magacle waxaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa isimo kor u dhaafayo konton kuwaasi oo ujeedkoodu yahay sida ay nabad waarta u dhexdhigi lahaayeen beelaha ood wadaagta oo kala dega deegaanada qoriley iyo magacle waxaana ay rajo wanaagsan ka muujiyeen gogosha nabadeed oo loo balansan yahay 11 bisha la sanadan aynu ku jirno waxaana rajo laga qabaa gogosha nabadeed ay ku hawlan yihiin isimada ugu faacaweyn gobolada Soomaalidu degto maxamed axmed jaamac TV-ga caalamiga ee Kalsan deegaanka Qoriley